in ra-iisul wasaare Roble iyo sidoo kale madaxweyne Dani isku fahmi waayeen 3 qodob oo waxa ay dooddu ka taagan tahay guud ahaan doorashada Soomaaliya kuwaas oo kala sida laga yeelayo xaaladda gobolka Gado oo dawladda federaalka Soomaaliya ciidamo geysa Jubbaland ay u cabanayso in gacanteeda lagu soo celiyo maamulka gobolkaas sidoo kale waxay dhinacyadu qodobka labaad ee ka hadleen ahaa in xal loo helo doorashada gobolada waqooyi gaar ahaan gudiyada doorashada ee waqooyiga ama Soomaaliland ka imaanayo loona madax banneeyo gudoomiyaha golaha aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya Cabdi Xaashi Cabdullaahi maadaama ugu sareeyo xubnaha matala Soomaaliland doorashada ku yimid halka hadda ee dawladdu ama villa Soomaaliya u ogolaatay inuu soo xulo isagoo la tashiyo sameynay ra'iisul wasaare ku-xigeenka Soomaaliya qodobka saddexaadna waxa ahaa in laga garaabo doodda ay qabaan musharaxiinta mucaaradka ah in gudiyada taas oo ah in gudiyada ay ku jiraan xubno ka tirsan hay'adda nabad sugidda iyo sirdoonka qaranka shaqaalaha dawladda iyo sidoo kale taageerayaasha madaxweyne Farmaajo Jubbaland waa Puntland waxay qabtaa in intaasoo qodob oo aan xal laga gaarin aysan suurtagal noqon karin in dalkan ay ka qabsoonto doorasho wadar ogol ah oo natiijo dadka Soomaaliyeed ku qanacsan yihiin soo baxda ra-iisul wasaare Roble ayaa dalbaday in Puntland iyo maamul goboleedyada kaleba ay yimaadaan magaalada Muqdisho si mar kale looga wada hadlo arrintan halka ay maamul goboleedka Puntlandna dalbanayaan in uu qaato madax bannaani iyo go'aan oo halkan ku ogolaado wixii lagu wada heshiiyay dhaqan geliyana ra-iisul wasaaraha amaba uusan faraha la gelin arrimaha ka taagan doorashada Soomaaliya oo ay mas'uuliyadda iyo ceebtii ka timaada Puntland sheegtay inuu qaadan doono madaxweyne Farmaajo oo ay ku eedeeyeen inuu ka baxay ballamo hore loo galay Cabdi Barre Yuusuf oo ka mid ah xildhibaanadii hore ee baarlamaanka Soomaaliya kuna sugan Garowe ayaan weydiiyey waxyaabihii ugu dambeeyey ee shirka ka socda magaalada Garowe bismillaahir rahmaanir rahiim bas ma sakiin waxyaabaha kale isku haysto waxyaabaha madaxweynuhu ka sheegay shirkii maaragtay shirka lagu hadlayay oo warkiisu ahaa waxyaabaha ugu madadooda hadlayo waxa weeye waa waxaan maaragtay qolada sida Soomaaliya ka suuroobay inay ka wantoogaan arrinta ugu muhiimsan laga hadlayo ugu muhiimsan waa 2 qodob ugu muhiimsan ama 3 qodob oo arrintan maaragtay arrinta gadas in ciidamada laga soo baxo oo ciidamada loo jeeyo meeshii loogu talagalay oo aniga loo jeeyo aan lagu burburin maamulada dhisan oo la madax banneeyo maamulka Jubbaland la madax banneeyo qodobka labaad oo ah guddigan doorashada xafiisyada dawladda laga soo ruushay oo dhalinyarada oo maaragtay aan xirfad u lahayn qaabka doorashooyinka in dib loogu noqdo la bedelo oo wax loo leeyahay la sameeyo iyo xildhibaanada Soomaaliland in loo madax banneeyo oo ayagu mas'uuliyad ay ka taliyaan oo aan loo yeelin maaragtay faragelin ugu sameeynin marka qodobada maaragtay runtii miiska saaran maaragtay iyo maaragtay Puntland inay arrinta ka tanaasuleyso maxaa yeelay waxay uga tanaasuleyeen waa mas'uul Soomaaliyeed oo shacabka tunka saaranayo marka arrimahaas ugu muhiimsan arrimaha laga hadlayo marka maadaama Garowe aad joogtid siyaasadda inaad xogaal u tahay waxaa jira warar soo baxay oo sheegaya in dhinacyadu isku fahmi waayeen 3 qodob oo wixii laga wada hadlay ma jirtaa wax aad xogaal u tahay oo ay dhinacyadu isku fahmi waayeen ama doodi wali ka dhiman tahay oo dib la isugu soo laaban doono wixii horta laga wada hadlayo maaragtay ama mashaariica ama horumara oo maamul goboleedka dowladda federaalka xaq ugu leeyahay intaas in laga wada hadlo isaga soo dhawaado waxyaabo badan oo maaragtay Puntland ay dowladda federaalka ka qabatay su'aalo fara badan oo dhinaca mashaariicda iyo horumarinta iyo arrimaha bulshada arrimahaas oo dhan waa laga yaabaa in la isaga soo dhawaado meel wax la soo dhawo warbixin laga soo saaro laakiin marna ma dhici doonto sida xogaan u hay 3 qodob in Puntland ka tanaasusho maxaa yeelay Puntland markasta waxay u taagan tahay xalka Soomaaliya iyo horumarka Soomaaliya in wax la wada leeyahay oo Soomaaliya leedahay oo dad Soomaaliyeed laga wada hadlo marka waxa shakhsiyaad jeelka ugu jira oo qof dan gaar ah wata ama koox dan gaar ah wadato oo ayagu tunka ay saarteen in Puntland intay ku raacdo ay ku burburiso oo maaragtay la sheekay ummadda saan lagu burburiyo marna taas ayaa laga tagay marka 3 qodob waa adkaanaysa in Puntland ka soo dhawaado waqtiga waa gabagabo dawladda dhanba waxa u harsan wax ka 60 cisho baarlamaankiina 15 maalmood ba u harsan wali ma jirto wax doorasho oo dalkii ka socda حتى هجيس مجرو
cabdi barre maxaa is leedahay Soomaaliya way ku jeeysanaysaa mustaqbalka bilooyinka soo aadan horta waxaa nasiib darro ah runtii aad nasiib darro ah madaxweynihii 8 February 2017 sidii looga loo soo dhaweeyay oo madaxweynayaashii ka horeeyay labada gacmood inta qabteen markhaati u noqdeen oo yiraahdeen wardal dhisan oo diyaarsan lagu ku wareejiyay markhaatigeedu ahaa shacabka Soomaaliyeed oo khaasatan meel kasta ay jooga banaan bixin laakiin shacabka Muqdisho degan oo iyagu 48 saac fadhiya fariiso waayo inta banaan bax ku jiray in maanta loo go'diyo oo banaan baxoodii ay kala kulmaan dhibaato fara badan ay kala kulmaan waxa nasiib darro ah madaxweynihii sida loo soo dhaweeyay in laga kari waayay wardoorasho qabo oo wax ka dhaga adeegay baaqa siyaasiyiinta maanta shacabka Soomaaliyeed ka soo yeerayay siyaasiyiinta ka soo yeerayay marka maalin markay dib u soo dhacayso waxa qasaar ugu jirta farmaajo qasaar ugu jirta doorashada dul qabtana asaga faa'iido ugu jirta marka qasaarada asaga ugu jirta maalin ka dib markay dib u soo dhacdo waxa dhici doonta sidoo maaragtay isu aqooninayo waxa dhici doonta boqolaal kun oo dhalinyaro ah oo caruur iyo dumar iyo maaragtay uusan xakamayn karin in marka dambe maaragtay fidna Soomaaliya geesaha laga soo galo oo uusan xakamayn karin marka waxaan leeyahay wartaas inteena kugu imaanin baasha dhulka inta dhigtay oo hogaansano siyaasiyiinta iyo waxa la isku hayo iyo sida shaqo lagu doortay baasha inta miiska saartay tanaasulna muuji dalkaana qas iyo qalaalaasa siyaasada hagelin intaasaan kuwa dardaarmaya kuwa fidna Soomaaliya dalka mas'uuliyadda doorashadu kaliya ma saarno madaxweynaha ee waxay saaran tahay Soomaalida oo dhan si gaar waxay u saaran tahay madaxtooyada ama guud ahaan hay'adaha dawladda iyo kuwa maamul goboleedyada madaxdoodii oo ayaga laftirkooda culays badan ee dawladdu ka tabanaysa ama ku hayaba maxaa eedo oo dhan farmaajo dusha looga saaraya oo loo arki la'yahay dhibaatooyinka oo kala kulmayo madaxweynayaasha maamul goboleedyada qaar iyo xubnaha mucaaradka ah adeer waxa weeye arrintaas waa sax maamul goboleedyadu diyaar waxay u yihiin oo markasta diyaar u yihiin dalkan inaan shakhsi kaliya wax rabato oo samaysan dalkan waxa maamuladu og yihiin siyaasiyiintu waxay og yihiin dalkan wixii loo soo maray iyo dhibaatadii loo soo maray og yihiin waxay og yihiin dalkan meesha laga soo ceshay laakiin waxa walba ka xasiilayihiin oo jaha ay u furlayihiin oo dalkii meel kasta isaga caburiyay oo meel kasta dawladdan ku qaaday oo meel kasta dhibaato ku sameeyay adeer waa farmaajo taana qof walba waa og yahay ninka maanta mindida daabkeeda haya ninkaas laga rabaa ama meesha garwadeenka ninkaas laga rabaa tanaasul kasta 100% inuu sameeyo maxaa yeelay dalka asaga aabayo hooyo ah asaga laga rabaa tanaasul kasta inuu sameeyo asaga laga rabaa wax kasta oo dalka dhibaato u keenay inuu xakameeyo maxaa yeelay dalka asaga garwadeenka ah wixii uu caawa ku dhaqaaqaya marka idinka wariyaasha ka laabanin xariiqda dhabta maamulada waa ogtihiin in dhig badan lagu daashay oo dad keensaday oo dad lagu laayay oo sharci u lahayn taswiirna uu soo lahayn baarlamaankii waxaan kala xakameyn lahaa in laga dhigay maartay baarlamaan meel iska yaala oo aalad lagu shaqaysto markii la rabo loo yeeranayo markii la doono sayniska laga dansanayo dalkan marka dhibaatada ugu weyn wixii ka yimaado dalkaas dib u dhac ha ahaato siyaasad qaadaasho ha ahaato dhiig hadduu caawado haddii xabad dhacdo mas-uuliyadeeda waxaa qaadanaya kaalinta koowaad baarlamaankii loo idmaday baa arrintaa qaadanaya mas-uul ka noqonaya midda labaad waxaa qaadanaya madaxweynihii dalka xukumay baa qaadanaya eedu meel ayaan la aadin maamuladii waa hadleen siyaasiyiintii waa hadleen war doorasho hal qabtaa la yidhi marka eedu meel ay leedahay aadin ha raadinine ee sabtu meeshay ka qorantay tilmaama maasanta ugu dambeyn haddii dawladdii dhexe gaar ahaan madaxweyne farmaajo iyo madaxweynayaashii maamul goboleedyada iyo kuwa mucaaradka oo musharaxiin ah ay haystaan yaa weeye cidda ka madax bannaan ee dalkan badbaadin karto adeer shacabka Soomaaliya markhaati buu yahay waxa badbaadin karaa dalkan oo badbaadinta u xil saaran shacabna badbaadin karo siyaasiyiinna badbaadin karto markii haddaan qofkii siyaasiga dhageysanayn oo bulshada rayidka waa aragteen dhawaaq ka yeeray shaqada ka yeeray odayaashii waad aragteen hooyooyinkii waad aragteen dhalinyaradii iyo ardadii waxbarashada jaamacada waad aragteen ku hayo warbahasha farmaajo sida u dhan maamuladii waad aragteen siyaasiyiintii waad aragteen intaa hadduu ka inbasaabtay oo dalkan taladii iyagu ay baaqeen ninka ka inbasaabtay oo ka inbatirtay oo u haysta dadku cawaan socdo u haysta adeer mas-uuliyadeeda farmaajo dalka iskale asagaa la rabaa wax walba inuu tanaasul sameeyo dalka inuu u naxo
inaan dhibaata ka dhicin asagaa laga rabaa mise malaha wuxuu sheegay dalka amxaara ku qabanayso ninkooda waa walaalkay amxaara ku qabanayso malaha ka wada oo malaynaya marka waa nasiib darro aad u weyn cidda la afgaranayay oo meel wax u socda iyo meel wax u wada aqoon yaada waa ninkaas la Soomaaliya ka atooreeyay war dalka iyo dadka ha loo danqado shacabkan dhibaato ma rabo dhibaato xildhibaan hore Cabdi Barre Yuusuf ayuu kaasiha wuxuu iga hadlayay xaaladda shirka magaalada Garowe ee ku yeesheen madaxweynaha Puntland Saciid Cabdullaahi Dani iyo ra'iisul wasaaraha Soomaaliya Maxamed Xuseen Rooble kulamo kale ayaa weli harsan waxayna dhinacyadu rajo ka qabaan in isfaham uu ku soo dhamaado shirarka u dhaxeeya